رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له خالقة ميل كستو أدونك أتكجوكتان عافيمتي براقكم الله انت حنوسن الله سبحانه وتعالى عافي انت عافيمات قبطنا الله سبحانه وتعالى عز وجل وزيادية ما انت حير أو حاربا وحير إن القبلها برارجين أسو جيديو إن أنا أشيغو قيمها أو إيا لإسلامك إسلامك كهرنا قيمها إيه الهانجرين الله سبحانه وتعالى عز وجل intuunan rasuulkiisa soo dirin gabdhaha waxay ahaan jireen kuwa qofkay u dhashaan xishood dartiisa uu guryaha ka soo bixin kii isdhaho ha dilin waxaad dhashay waaye xishood dartiisa guriga kama usi soo bixi jirin midkii kale sumcad iyo sharaf raadinayana isla markaas god ayuu u qodi jiray ayadoo nool ayuu duubi jiray islaamka ayaa ku ciseeyay gaaladii markaas sidaas kugu gala jirtay maanta way joogtaa kuwii ku xumeyn jiray ee necbaa sharaftaadana hoos u dhigi jiray ee qofaan qiimo lahayn ka dhigi jiray adigoo nool ku duubi jiray isla maanta way joogaan kuwaas ayaa maanta waxay ku dhahayaan waxaa lagaaga tuntay xaquuq waxaa hoos loo dhigay sharaftaada dib ayaan u soo celinayaa xaquuqdaada xaquuqda uu ku soo celin kara maxay tahay qof markii aad noloshaadii aad u baahneed dhulka kuu qodi jiro ku duubi jiray maanta waxa xaquuq ku soo celinayaa waa maya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku sharfay kitaabkiisana waa lagugu sharfay imise jeer ayaad xaq weyn oo aad u ballaaran dusha lagaa saaray qof qiimo badan ayaa tahay ha isliidin hana isniyad jibin hana dhihin haddaan xijaabka qaato horumar nooceen gaari karaa horumar intaad doontid ayaad gaari kartaa bulshadana waad dhex socon kartaa bal waxaad noqonaysaa qof la karaameeyo lagana xishoodo markii la arko ogsoonow nin kasta oo qaab daran oo xishoodkii Allah ka tagay ee dariiqada taagan wuxuu rajaynayaa inuu guursado ama uu haminayaa waa gabar xijaaban hadaa weydiiso su'aashaada mid kasta wuxuu ku leeyahay gabar xijaaban oo sharaf leh hadaan heli lahaa nimankii galbeed intay ka imaadaan ee wadanka imaadaan ayaa maanta waxay leeyihiin hadaan heli lahaa gabar sharaf leh oo xijaaban wareerka laga soo dhaxraadiyo Allah subhanahu wa ta'ala kuma u qiimo tirin bal 3 jeer ayaa waxa tahay qofkii la dhahay jannada waxay ku jirtaa labadeeda lugood sidee lagu qiimo tiray laguma qiimo tirin qof qiimo badan oo aad u qiimo badan ayaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana sharaftaada kor u qaaday cidna uguma baahnayn maanta inay sharaftaada kor u qaado sidaa tahay ahoo xijaabkaaga sidii Allah subxaanahu wa tacaala uu ku amrayna u qaado cidnaha ka sugin inay ku qaado sharaftaada waa wadataay si tixgelin iyo sharaf ay ku jirto u qaado sharaftaada sidaada u wado 5 maalmood hadii lagu caayo oo lagu dhaho xijaab weyn saan waaye kan aheede waxay ahaan jirtay gabar caariyaad xijaab xiran 5 bir sheekh lagu noqdo waa hada 5 maalmood maalinka lixaad cid ku sheegaysa markiisi sharaftaada hoos ha u dhigin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku karaameeyay bal isku fiiri miraayada markii aad xiran tahay xijaabka sida aad u qurux badan tahay bal waxa ka sii dara markaa wadada maraysid adigoo xijaaban sida ay dadku ku ixtiraamayaan adoon maamo gaarin ayaa waxa lagu leeyahay maamo Allah subhanahu wa ta'ala intaas qiimo ka weyn oo aad ka heli lahayd bini aadan ma jirto Allah ayaa ku qiimeeyay bini aadan cizi iyo sharaf ka sugin Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kor ku qaaday Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa aniga iyo idinkaba inuu xijaabka nagu xifdiyo kuwa mar walba ilaahay dartiis u qaatan inuu Allah subhanahu wa ta'ala naga dhigo waa walaashiin Mulki Xasan Maxamed oo idin leh toosnaanta wax ka wanaagsan waa la waayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh